بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاه الله خير الجزاء. آدي بانو ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وقبر ينا إن ميزانك حسناتك الشيخ وياله ما شاء الله إن محاضرة قيم كأه وينوسو جيدي الشيخ إلهينا سبحانه وتعالى إن جيله كوا أنفع اللهم آمين. إن شاء الله تعالى دور دقيقة أيين أفرينا إن شاء الله تعالى فلوركا إن سؤاله إن شاء الله تعالى موضوع كسابسن إمك الشيخ وطابتي إن شاء الله تعالى قف كدوني استفسار إنه سميه إن شاء الله تعالى وحانو هينا مايك بورتبله وقفكي سؤال قبل إن شاء الله تعالى لو ديبيو هدو إلى هاي راهدو مركا سداه لولا صعدو إن شاء الله تعالى مركا عد سؤال قبطاء هدو إلى هاي راهدو كسابسن موضوع حاج محمد إن شاء الله تعالى أستاذ زكريا أيام مايك إن شاء الله تعالى أدي لي قفك سؤال شاهية مركا حقاس إن شاء الله تعالى بارك الله فيك. أشد إن شاء الله. حق وسك أشد مهندس إن شاء الله تعالى. waxaan wadnaa kaasi marka waxa ku soo raacaya dad maxaa dadkan xunxun marka way ku sheekeynayaan waxay koonayaan qof kastaaba dadku waa isku mid yani iyagoo ma kala socona marka waxay u jeedadoodu waxayaan question of inclusiveness marka halka inagu ma geli karo marka diintooda ma geli karo diintana ma geli karo waa dad waqtigu waa kooban yahay halka mad ku tuuraysa marka waxaan ku nidhahnaa waa sax si ma taqaanad aan isu dhaafino dembi ma jirtaa halkaa wax dhibaato ma geli karo waxaan sax ahayn sax lagu sheego maaha qofka ama diin ugu yeedh ama dee qaladkiisa u sheeg ama dee ka ama at least haddaad xal kala weydo laakiin in loo sugo maaha in loo iqraariyo la yidhaahdo you are on the right path ma sax maaha qofkii haddii wax loo sheegi karo wax sheeguna asalka qofku hadduu ka lumo faraca ma daweyn kartid ilaahay rumayntiisa iyo ka dambayntiisa iyo sharcigiisa hadduu qofku ka lumo ma daweyn kartid waxyaabahan yaryar waayo waxyaabahan hoose waa kun su'aaloodoo midooba mid ka dhalato laakiin haddaad asalka isla garataan waxa dambe waa la sixi karaa marka dadkan waxaan ugu idin odhan lahaa waxa weeyaan masaa'il farciya ribada waa xaaraan iyo kani waa xaaraan waxbaa kala doodine war ilaahay rumaydha aakhira kaa dambayse haddii tan lagala hadlo nin sheekha wuxuu igu yidhi qolo atheism aan ilaahayba rumaysanayn baanu doodna dhex martay bidho markaan cabaar la hadlay way sadkeeyeen ayaan ku yidhi buu yidhi bes waa kala tegaynaa hal midaan kuu sheegayaa waxaan rabaa inaan kuu sawiro meesha kaa dambaysa waad dhiman doontaa ilaahay baad hortegi doontaa waad dafartay buu odhan doonaa naar caynkaasa naartu waa sidaysaa jahannamaan u sharxay buu yidhi say u eg tahay iyo caynka dabeetana siibaan ku kala tagnay buu yidhi su'aashii mustaqbalkaagu noocaasu noqonaya unba trigging soo noqnoqoto ninkii markii dambe ay soo dad badan baan ku tijaabiyey buu yidhi kuwa mulxidiin waa mulxidiin aan ilaahay rumaysanayn dib bay soo garaaceen buu leeyahay ma kula negotiate garayn karnaa ma waxa dambe ma ku weydiin karnaa waxaan uga dan leeyahay markaa dadka inaynu asalka kala hadlaabaa muhiima hadday asalkaasi saxmo waxaan ka dambeeyaa waa saxmi karaa insha allah baarak allah fiik sheekhana إن شاء الله تعالى عد كلا أو سؤال كسابسن موضوعه ما شاء الله شيخ عاوة كهدلي ما شاء الله أخي يس ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال waxay yar qosaysaa shaqadayda iyo Christmas-kan iyo waxaan mataqaanaa waxa jira waxa lagu siinayaa kaadh yar baa lagu siinayaa juwan yar oo ay ku leeyihiin cuntaa jirta cuntadaasaad qaadanaysaa cunaysaa maalintaas waxaa jirta hadiyad ama gift lagu siinayo marka annagu ma qaadano annaga iyo qolo kale oo aan ka mid nahay intayna muslimiinta ah umana sheegno kaadhka umaan qaadanaa waan iska tuurnaa marka biinkaasaan ku rid inaan u sheegno miyaa oon ma rabno mise waxa weeyaan saa aan kaga joogno maan kaga joognaa
su-aale fiqiya ku saabsisan masaa'ilkan waddankeena ka jira shuyuukhdiina weydiinaysaan wallahu aclam. ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله. حاج احمد ان شاء الله ساشا كحكتا. السلام عليكم شيخ جزاك الله خيرا. وسؤال كصابسا مهمة اللغة الصومالية حمودا إن آد هل كان ساد وقتها شيخ وحا آد لو استعمال اللغة الأجنبية dadkiina waxay u badanayaan dabcan dadka yaryar marka mujtamacu siday u socoto luqadda ajnabiga ku dhamaanaya ku damaynaya marka muhiimadda ay leedahay luqadda Soomaaliga adigu inta badan dacwa ma sha Allah waa fardaha dacwada maaragtay nagu gaarsiiso bay luqadda Soomaaligu maaragtay ma sha Allah ahayd marka muhiimadda ay leedahay dad badan ayaan fahansaneyn maaragtay waalidiin badan hadii la weydiiyay waxay yiraahdeen tay luqadda Ingiriiska ay barteen carruurtu maxaa naga wareerinaysan Soomaaliga marka insha Allah taala halka hadaad insha Allah naga oran lahayd jazakallahu khairan sheekh. kole dhowr jeero horan ka hadlaan u malaynayaa Soomaaliga iyo ama luqaduhu sideedaba iyo bini'aadamka si ay identity ugu yihiin ummadu waxay ku kala soocan yihiin waa diin iyo luqad. marka diinta haddaad weydo waa isla garanaynaa dee inaad islaamnimadii oo dhan weyday luqada haddaad weydana soomaalinimadii baad weyday yani haddaad luqadaada weydo soomaalinimadaadii way kaa dhammaatay waayo luqaadku waa waxa keena dadku communicationka iyo inay isfahmaan imika intiina halkan fadhidaa waa inta aniga afkayga fahmaysaa intii aad dhasheen af ingiriisiga ku hadlaysay dee isma afnaqaano saa daraaddeed ii iman maayaan waayo xidhiidhkaygu wuu go'an yahay xidhiidh ma lihin saa ogeed waxaan uga dan leeyuun qofku hadduu afku ka lumo walow midabkaagii ha yeeshee soomaalinimadii wuu luminayaa soomaali talyaani ku hadlayo soomaali ingiriis ku hadla ma jire talyaani ku hadlaa jira iyo ingiriis ku hadla iyo soomaali ku hadla marka ninkan haddii luqatilum ama afkiisii hooye hadduu af ingiriisi noqday dee waa nin britisha waxa laga siiyaba marka waxaan uga dan leeyuun dee haddaynu rabno soomaalidu waxay istidhaahdaa ma af soomaaligu wax iska fududo markiiba uu fahmi doonaa uu baran doono maaha wax saa u fudud oo saa dhaqsaa laysaga barta maaha hadduu gurigii hooyadii iyo aabihiiba ay ku hadlayeen ku baran kari waayo xaguu ka soo baranaya gurigii aabihii iyo hooyadiiba joogeen ee lagaga hadlayay asalka ahaa carruurtan ku midna waa kuu sheegaya uno carruurta ka weyn haddaad ku guulaysato inta kalena way baranaysaa marka uu noqdo dadkani dad af Soomaali ku hadlaya laakiin inta hore hadday kaa faranjiyowdo dee faranjiga Soomaalida waxay odhan jireen wixii faranjiga ku hadle way adag tahay inaad luqadaydu u barto allahuma ilaa dee inuu waddankiisii iyo dhulkaa tago uu mar dambe tacab ku soo barto kaana tacab badan baa ka geli doona calaa kulli xaal warkoo kooban dee waa laga yaabaa inaad muslimnimada ku sii hayso laakiin soomaalinimo ku hayn kari maysid marka soomaalinimo ka teg hadduu af Soomaaliga waayey laakiin waa suurtagal dee Bakistaani muslima iyo Hindi muslima inuu la mid noqdo marka dadka Soomaaliyeed loo eego kuwa unbuu kula mid yahay waa muslimo isku diin baatiin laakiin dee kama sokeeyo ninka kale muslimka ee ajnabiga kama sokeeyo wuxuu Soomaaliyey intuu Soomaali ku hadlayo aniga aragtidaydu waa ka إن شاء الله تعالى سؤال ku xigta inta aan loo wareegin waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago run ahaantii bishaaro wanaagsan bishaaradaas oo ah insha Allah taala masaajidku inuu furi doono dhawaan kalaasyo loogu talagalay dadka dhalinyarada ah ee yaryarka ama primary school ama secondary school ba ha noqdeen in loo furi doono classes lagu bari doono luqadda hooyo ee luqadda Soomaaliga ah إن شاء الله تعالى كلاسيداasi waxay bilaabmi doonaan January sanadkan cusub 2022 marka qofkii doonaya macluumaad dheeraad ah oo arinta ku saabsan hala soo xiriiro masaajidka xagga sare Al-Furqan Academy marka si aad u register garaysid awlaadaada insha Allah ta'ala marka waa fursad aad iyo aad qaali u ah
inaynu helno waalidiin ama macalimiin insha allahu tacaala arrintaa u qumi doona oo diyaar u ah iyo meeshii lagu dhigi lahaaba aynu hayno iminka marka insha allah tacaala waxaa laynooga baahan yahay in ardaydii inaynu register garayno si kadibna aynu kalaasyada u furno marka luqadda ahamiyadda ay leedahay sheekh mustafa iminka aad buu inoogu bayaamiyey ka horna wuu inoo bayaamiyey marka iminka alxamdulilah waxaynu soo gaarnay waqti aynu kalaasyadii furi karayno marka insha allah tacaala ha laga faa'iidaysto marka qofkii macluumaad dheeraad doonayana xagga sare masaajidka alfurqaan academy ha la soo xiriira hadduu ilaha yidhahda baarak allah fiikum su-aasha ku xigta dumarku haddii ay su'aalo qabaan way soo qori karaan insha allahu tacaala بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashan ah waxyaalaha hadda laga sheekeynayo oo macnaha mawduucan ku saabsan waa wax hadda already wadankan iskuulaadkiisa waxyaalaha laga bilaabay oo ubadka oo dhan loo dhigo run ahaantiina markii la eego dadkeenna dee dadkii dhulka ka yimi ama dadka diinta wax ka garanaya wax badan bay og yihiin oo aysan ilmahoodii ma awood karaan inay si macnaha qoto dheer ay ugu sheegi karaan uma sheegi karaan qofkan macallinka ayoo ilmaha iskuulka barayina waa qof ilmahan suu maskaxdiisa u bedeli lahaa u diyaarsan marka qof wax uu macallinku u sheego macnaha dadka waalidka waxa moodaa inaanan la tartami karin dadkaas aqoonta ay leeyihiin iyo ilmahan in maskaxdiisa sidii loo bedelo sidii muddooyinka haddaba waan u aragnay dad badan oo caqiidadoodii bedelay waxa khatara muddooyinka soo socda in la arki doono dad badan oo waxyaalahaas wax caadiya u arka oo macnaha sidii wax la siman yahay oo iska caadiya u arka marka maxaa kula talin lahayd waalidiinta in ay sameeyaan taas waa su-aasha koowaad su-aasha labaad dadkeenna wax baraya ilmaheenna oo dhinaca diiniga baraya laftooda sidee bay ku baran karaan cilmiga noocaasa oo ilmahay wax barayaan oo diinta ay barayaan si macnaha psychologia ama macnaha ay u awood karaan ilmaha kan waxaan inay uga dhaadhiciyaan see u awood karaan labadaas su'aalood baan waasanaha baarak allah fiik su-aalaha qaarkood jawaabahooda idinka iga badaya waayo haddaad tidhaahdo warbaddaan gelayaaye sidee baanan u qoyin dee anuu garan maayo baddaan gelayaa sidee baanan u qoyin garan maayo ilmo yar waana caqligiisu dhismin waan helin miisaanka ah maxaa xun maxaa san intaad u geyso nin gaaleed inuu isagu u dhigo maxaa xun maxaa san dabeetana siduu u arkaye uu u baro maxaan yeelaa dee ma garanayo waxaad yeesho waxaan garanayaa uun wuxuu yahay war ilmahaagu meeluu ku halaagsamaya ha geynin oo haddaa saanu yeellaa dee taasi aday kuu taallaa nin tuurle siduu u seexda bay soomaalidu yidhahdaa isagay u taallaa aday kuu taallaa awalba inagoo bele ka ordaynaynu halkan soo gallay dee bele kale adoo ka ordayana waad garan kartaa inaad meel kale geli karto markaas saad yeelaysa aday kuu taallaa marka ay timaado qofka wax dhigaya wax dhigistu waa profession la barto maaha wax uun dee qofku yidhaahda afkaan aqaanayo dabeetana wax iska turrogsiyo maaha waa profession la barto maadaama ay profession tahay dee ciddii soo baratay waxa dhigto cidda kalena dee korsoon iyo training ha la siiyo waa wax la baran karee maaha wax weyn qofka isagoo maadadii yaqaana maalan ninka imka jaamacadda ka soo baxay ee sabjigu doona takhasus ku leh macallin ma noqdo dee haddaan bidagoga la siinin waa inuu qaataa koors ku saabsan macallinnimada sida wax loo dhigo waa kala laba inaan xisaab aqaano ama fisigis aqaano iyo inaan macallin ahay waa laba shay oo kala gedisan anoo fisigis aqaana ama xisaab aqaana aanan de inta iskuulka imaada lay odhanayn fisigiska taqaana kaala dhig ama xisaabta taqaana kaala dhig waa inaan professional ahay professionnimaduna dee waa fan la barto ninkan koorsooyin baa la siin
afafka norwejiga waxaan pedagogy bay yidhaahdaan ama methodology sida wax loo dhigo ayaa qofkan la bari kadib buu macluumaadkii u yaqaanay ayuu dee ku gurayaa markaasi uu dhigayaa marka waa wax fudud haddaad dee train garaysanaysaan laakiin dee wuxuu u baahan yahay macallimiinteena inay idinku train garaysaan haddaanay lacag haysan inaad course ka bixisaan haddii idinka idinku jiraan dad professionali inaad dee trainings bixisaan oo koorsooyin siisaan in sidii wax u qabsan lahaydeen in la sameeyo oo ku jirtaa laakiin dee waa masale cilmiye waxay yidhahdaan cilmigu waxna waa fan waxna waa cilmi bay yidhahdaan cilmigu waa macluumaad aad barato fanku laakiin darawalnimadu maalan waa fan inta meel lagu fadhiisiyo cidina ku odhan mayso gaariga saasaa loo kaxeeya deetana saa darawal ku noqon maysid waxaad u baahan tahay in wadda lagu mariyo si aad lagu baro waxa kan marka macallimiintan oo sidoo kale ala kulli xaal waxaan leeyahay dee koorsooyinka ha qaataan ama dadkiina professionalka ahi tababara inta aan professionalka ahayn wallahu aclam الله فيك إن شاء الله تعالى وقتك كوبن هدو إلى هاي هذا انتاس أيينو إن شاء الله تعالى كسو كوبي دورنا سؤالها شيخنا آدي أدبن مهد علينا إلهي سبحانه وتعالى خير بدن هسيو إعلان مهم بان إمك تشيدين يا إعلان كاسي وحوي بريتولي وحاين بلانتو مركو راهي تشيخو إنو مات يبربي إنا لتشوغ كريو لكن محان كل هذا قدر الله ما شاء فعل ما يسور تقلين شيخو إنو مالين لباد إنا لسي تشوغو مركا بريتولي لبادي محاضرة والشيخو لها إنو سور تقلين ميسا إنو شيخو إنو قلو مركا dib ayuu safar ugu noqonayaa ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in safarkiisa uu fududeeyo insha allahu tacaala hawsha uu dib ugu noqonayana ilaahay subxaana watacaala uu hawl khayr qabto oo wanaagsan oo insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala fududeeyo inuu ka yeelo sheekha hawshaas insha allahu keensatay inuu dib u noqdo marka baaraka allahu fiikum hooyooyinkii maasha allah ka qayb qaatay sheekha markuu imanayay iyo diyaarintii hawlihii sheekha u baahnaa iyo wixii la midka ahaa iyagana ilaahay subxaana watacaala khayr badan ha ka siiyo marka insha allahu tacaala sheekha waxaan ku leeyahay noo ducee hadduu ilaahay yidhaahdo inta aynaan kala tegin insha allahu tacaala baaraka allah fiik subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa inuu dembigeena iyo kii waalidkeema dhaaf intii inaga dhimatay muuminka ahayd in ilaahay u naxariisto innagana inuu inaga daba naxariisto gaala inaan alla wax inaga raacin inta meesha ku sugan iyo inta kale lamidkaba in ilaahay ubadkiyo oridaba u sugo iyo naftoodaba akhriya adduunba ilaahay subxaana watacaala inta guulaysatay inuu inaga yeelo adduunkanna inta diintiisa fahamtay ku dhaqanta in rabbi inaga yeelo subxaana watacaala dhulkaynu ka nimina wax khayr qaba in alla siiyo dhexdooda in ilaahay subxaana watacaala iswaafajiyo wixii dantooda aakhiriya adduunba ku jirto in ilaahay ku hanuuniyo abaaraha iyo dhibaatooyinka iyo dagaalada jirana in ilaahay ka qaado sala allahuma cala nabiyi muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah baaraka allahu fiikum maasha allah jasaakum allah khayr